fadhigii intuu ku kacay ku yidhi baxa sid Yasmiin ku barateen yaa idin baray maxaad tihiin halkeed ka timaadeen. Assalaamu calaykum maanta waxaynu ka sheekeyn doonaa Yasmiin waa gabadh ka soo jeeda dalka Ciraaq. Yasmiin markay dhalatay hooyadeed way dhimatay aabaheedna wuxuu guursaday gabadh kale waayo ma awoodo inuu gabadha yar hayo iyo inuu shaqeeyo oo isku qabto waana ilmo yar oo hadda dhalatay. Yasmiin naa kale markuu aroosay ayaa waxaa dhacday gabadhii inay dhasho wiilal iyo gabadh saddex wiil iyo gabadh ayay dhashay. Gabadhii iyo ciyaalkeediiba ay Yasmiin ku xamaashaan oo ula dhaqmaan sidii qadaamada. Hooyadoodna markii ay iyada keligeed ay haysatay ay saas ula dhaqmaysay. Haddana tiyo ciyaal dhashay ay iyadii ciyaalkeedii ay ka dhigteen qadaamad. Waxaa dhacday kadib inuu aabaheed dhinto. Aabaheed markuu dhintay haddana sheekadii way kasii dartay. Way waaweynaadeen walaaladeed. Laba walaalaheed ka midii markay waaweynaadeen way arooseen. Naagihii ay soo arooseen markii waxay la soo degeen familigaasina wuxuu lahaa beer weyn, guryo waaweyn, maasha Allah, dad ilaahay wax siiyey ay ahaayeen. waxaa dhacday inay gabadhii haddana naagihii ay soo guursadeen inay ku qadaamtaan Yasmiin oo halkii dhibaatotii ka daran kala kulanto. wala saddexdii wiil iyo gabadhii yaraa ay walaalaha ahaayeen. waxa ay sidii ahaataba maalin way daashay gabadhii oo waxa ka hortimid shaqadii iyo dhibtii faraabadnayd ay ku hayeen. walaasheed ka yar ayay ku tiri adigu gabadh baa tahay maxaad sidaayda mas-uuliyad u qaadilaaday orodoo qabso waxaaga kuma soo qabanaya. gabadhii yareed baa isku dayday inay walaasheed dhirbaaxdo. walaasheedna way iska qabatay gacanteedii oo way iska celisay. way qabteen way iskugu tageen Yasmiin saddexdii wiil iyo gabadhiiba. say u dilayeen waxay uga tageen naf. markay saasi dhacday waxa dhacday inay gabadhii u tagto abtiyaasheed. markay abtiyaasheed u tagtay ayaa ay bililo joogto ayay dareerkii qadaamada u bartay ee dilkii hanada ku hayay markasta ee qadaamada u ahayd wax kasta hadday cunto tahay hadday dhar tahay wax kasta u sameynaysay ayaa xamil waayay oo u baahday qadaamadii shaqaaladii ay u barteen. walaalkooda weyn ee Maxamed ayaa yidhi aniga ayaa u tagaya waan soo sasabayaa waxaan iska dhigayaa qof raali gelinaya abtiyaasha horteeda waan soo wadayaa. okay wuu baxay wuu soo waday walaashii. markuu soo waday wuxuu ku yidhi waan qaldamay waa walaashaydii naga raali ahaada imikana walaashay waa inay guriga aabaheed ku noolaato oo walaashay anaa ka mas-uula waa inay gurigooda kusoo laabato waan ku qaldanay laasin waa inay raacdo. gabadhii way kaxeey okay baa lagu yidhi hadday saas tahay hay bay ku yidhaahdeen. iyadana way yeeshay way raacday. markay raacday ay gurigii aabaheed ku noqotay way qabteen way dileen way iskugu tageen. waxay ku yidhaahdeen mar dambe haddaad sheekadan abtiyaashaa soo dhexgeliso tagtaa raacda adaa ka qoomamayn doona. gabadhii markay saas ku yidhaahdeen shaqadii bay halkii ka bilaabday. noloshii silac ahayd ay ku noolayd ayay dib ugu soo noqotay. naagihii qabeen walaaladeed iyo walaasheedii yareed saddexdii wiil iyo hooyadood inay u qadaamto iyo waxay sii dhaleen walaalada. halkii ayay sheekadii waxay ahaataba way daashay. markii dambe ayay walaalkeed Maxamed la hadashay way ku dhahday anigu waxba idinkama rabo xoolaha aabahay oo dhan qaata waxna idinkama rabo guriga ma waxay tiri meesha banaanka iska dego. markaa waxaa jirtay meel xoolaha lagu xareyn jiray guri yar xoolaha lagu xareyn jiray oo xoolo dhaqato ayay ahaayeen xoolay lahaayeen markii hore. waxay ku tiri iska dego meesha xooshkaas xoolaha lagu xareyn jiray
waxna idinkama rabo. Okay buu ku yidhi, wuu u yeelay. wuxuu isdhahay intay abtiyaaladeed ku noqon lahayd oo mar kale idinka baxsan lahayd, meeshan hortaada ha joogto ayay isdhaheen. markay meeshii bay tagtay, meeshii bay iska xaqaaqatay. markii iska xaqaaqatay meeshii ayay iska gashay. gabadh waxaa jirtay saaxiib ay yihiin oo caawin jirtay, oo ha u keento wax yar cunto soo siisato, ha u keento waxay goglato, waxay ku caawin karto ku caawin jirtay. waxay sidii ahaato wiil ayaa soo doontay. markuu soo doontay jiiraankooga ah, wiilkii markuu soo doontay walaalkeeda weyn ayuu u tegay. markuu u tegay wiilkii wuu buriyey. wuxuu ku yidhi mar dambe haddaad albaabkayga soo garaacday amaad soo hadal qaadid ta kugu dhacda adaa ka sheekeyni. wiilkii wuu iskaga tegay. gabadh kale ayuu iska aroosay. way ogaatay yaasmiin markay ogaatay way iska aamustay. waxaa cid u ah gabadh ay asxaab yihiin oo meel dharka webiye oo ay dharka kusoo maydhaan oo halkaas ku taalay ayay tegi jireen. halkaas iskaga maaragtay halkaa webigaas ayay iska tegi jireen oo dharka kusoo maydhan jireen agteeda. marka meesha markay tagaan ayay kusoo sheekeysan jirtay, iska soo nafisi jirtay oo saaxiibadeed isku arki jireen. waxaa dhacday inay maaragtay tiyo suuqa tagaysa oo wax soo iibsanaysa ayaa waxaa jiray wiil halkaa meel ku haysta meherada ay soo agmari jirtay. suuqa markay usii socoto meherad ku haysta suwaaraadka, waxyaalan gacmaha lagu xidhiya, dhigaha iyo waxyaalan qalabkan dumarka iyo maykabka iyo waxyaalahaas iibiya ayaa jiray. oon qaryadan dad deganahayn oo qabaylkan qaryadan degan aan kamid ahayn oo qaryad kale kasoo guuray ama tuulo kale kasoo guuray ayaa jiray. ayaa waxaa dhacday inuu wiilkaasi ka helay gabadhan, uu jeclaystay inuu faamiligeeda kasoo doonto uu gabadhan barto. marka tiyo gabadhaas wiilkaasi ka helay ayaa waxay maalin kasoo iibsatay alaab ayay tagtay oo dukaanka ay kasoo iibsatay rooseta iyo wax ayay u doonatay. markay u doonatay ayuu weydiiyey nolosheeda, ku yidhi aabbaha iyo walaalaha iyo caawi dadkaagii, markasta waxaan ku arkaa adoo keligaa maraya halkan, adoo keligaa socda, faamiligaagii caaway. markii xaaladeeda ayay u sheegtay inay la nooshahay gabadha aabaheedii waxaas oy mashaakil ka dhaxeeyo oy halkaa iska gasho ayay u sheegtay. markii ay u sheegtay alaabuu siiyey, maykab iyo wax ayuu si siiyey. marka eedna way ku diiday. wuxuu ku yidhi qaado, waa hadiyade. gabadhii wuxuu u sheegay inuu maaragtay isagu xumaan ka damacsanayn oo nin mustaqbal raba uu yahay. wuxuu ku yidhi beri toole adiga oo raaliya ma iman kartaa waqtigaas, ma iman kartaa saacadaas, halkan ma iman kartaa. waayo bay ku tiri. wuxuu ku yidhi anigu waxaan rabaa mustaqbal, waxaan ku bari lahaa hooyadii, oon ku tusi lahaa haddisay hooyadii ku aragto. gabadhii waxay ku tiri okay. markay gabadhii okay ku tiri gurigeeda iska tagtay. maalintii dambe ayay u tagtay tiyo. marna isleetiro maruu ku sheegayaa mise been ku sheegayaa, istiri iska soo eeg oo natiijada soo ogo. waayo iyadu nolol adag ayay ku nooshahay. marka iyadu waxay rabtaa noloshan sidii ay uga bixi lahayd, ay u heli lahayd nin garab istaaga oo sanad u noqda oo noloshan ka saara. marka iyadu cidnaba ma diideyso haddii ay nasiib kheyr qaba hesho. markaasaa waxaa dhacday inay maaragtay hooyadii loo yeedho. markii hooyadii loo yeedhay ay gabadhii maasha allah tabaarakallah quruxdeeda gabadha lama soo koobi karo. hadday wax marsan tahay iyo haddana wax marsanaynba quruxda ilaahay siiyey. hooyadii wiilku markay aragtay gabadhan sidan u quruxda badan leh ee weli la aroosin ee joogta
way u qaadan weyday. waxay ku tiri familigaaga ayaan rabnaa inaan kasoo doonano. waxay weydiisay nolosheeda way u sheegtay. waxay ku tiri inaan ku nimaadno familigaaga walaalada u nimaadno iyo gurigiina ayaan rabnaa halkeed degantihiin. markaa way u sheegtay xaafadoodii bay u sheegtay. markaasay ku tiri maasha allah gasarkaa gurigaa weyn iyo beertaa weyn ma idinkaale. markaasay ku tiri haa. markaa waxay ahaayeen dad magac leh, dad meesha laga yaqaano oo maasha allah xoolo haysta oo xoog lagu yaqaano tuuladaas ayay ahaayeen. markaas waxaa dhacday inay wiilkii iyo hooyadii ay doontaan Yaasmiin oo familigeyga Yaasmiin markay ka doonteen ayaa waxaa dhacday wiilkooda weyn inuu loo tagay. markii loo tagay wiilkooda weyn ayaa uu soo diiday oo horta markii hore koow uu farxay. wuxuu moodayay walaashiisa yar in laga rabo. markii ay ku yidhaahdeen Yaasmiin baanu rabnaa ayuu fadhigii intuu ku kacay ku yidhi baxa, sid Yaasmiin ku barateen, yaa idin baray, maxaad tihiin, halkeed ka timaadeen. markaasay ku yidhahdeen halkaasaan dukaan ka haysanaa, tuuladaasaan kasoo guurnay. markaasay ku yidhaahdeen saad ku barateen Yaasmiin, imikaba meesha soo degteen. markaasay hooyadii ku tiri aniga gabadh raadinayay, markaa waa liikiin soo tilmaamay, saas darteed ayaan ku imiday. wuxuu ku yidhi gabadh ma hayno, anagu guur gabadh u joogta ma hayne, bax albaabka ka baxa. wuu soo eriyey hooyadii iyo wiilkeedii, sidii ayay kusoo baxeen. Yaasmiin markii ogaatay in wiilkaa kalena lasoo buriyey ayaa naftu ka baxday. waxay go-aansatay inay sheekadani tahay dhaxalku ka dambeeyo oo isleeyihiin hadday guursato ninkeedu wuxuu dhihi doonaa dhaxalkaagii dalbo oo guryahan waa la xaraashi doonaa iyo beertan iyo waxan laasin waa inaad ka ilaalisaan inay guursato. way xanaaqday markay maqashay Yaasmiin, way baxday. waxay u tagtay